haddii ka sheekay la yiraahdo qisadeedu waa gaar waa mowduuc kale qaadanaysa runtii anigan sida ay sheegayaan hogaamintu anigayna waxba ii hadhinba iska daa dadka iga dambeeyay mid kale anagu maanta waxaan ku cudur daaranaynaa dadka aan la joogno waa dadkii dhibanayaasha ahaa runtii af aan ku hadalana ma garanayno af anagu aan ku hadalaba oo aan la soo cararno ma garanayno dadkii oo aan ilmada haysan karaynin markay mikrofoonka qabtaan iyo xasuustii iyo mucjizadii ku dhacday ina anagu ka gar hadalno ma yaani wax adaygu ma la hadalnayna anagu runtii waaqacadii ama axtaaftii dhacday iyo jariimooyinkii maamulkii systemkii Cabdi Maxamuud Cumar aad baa looga shaqeeyay si weyn baa looga hadlay waxa oran lahaa anigu maanta waxay munaasabo u tahay August 4 shalay bay ahayd dhibaatadii magaalada Jigjiga ka dhacday baan anigu goobjoog ka ahaa waayo xasuuqii iyo dilkii iyo jariimadii hadday tahay oday weyn hadday tahay gabadh waa laga soo sheekeeyay anagu dadkiina way joogaano anagu halka inaanu ka sheekayno ma ahaba meel ayna iyagu joogin uma laga yaabaa inaan wax ka sheegno laakiin waxaan goobjoog u ahayn maalintii dhibaatadii ka dhacday magaalada Jigjiga 6 subaxnimo ayaa ani leeyla soo waxa la igu yiri magaaladii ciidan baa jooga haysta aan soo baxay anoo quraacanin waan imid qaryandoodaan baa waxaan isa soo taagay ciidankii oo halka jooga gudigii fulinta ku soo baxay oo dhameystiran gudigii fulinta ee waqtiga jiray baa sida bulshada sida shacabka u dhagax tuuray ciidankii anigu meel masaajidaadka u taaganahay waxa dhagax tuuraan oo ciidanku soo socdaba dhagax tuuraan oo ciidan ilaa dad la diyaariyay oo goobo fara badan lagu kala diyaariyay baa magaalada jooga dadkii baa xarkaa soo goostay markay joogaan meelahan maaragtay iskoyskan sayidka ay inta eriyaan ayuu dadkii yimid isagoo gaadiidkii wata isagoo wata muxuu ahaa budadkii isagoo birihii wata isagoo saafafkii wata ayaa intaas oo meelood baa laga kala yimid magaalada wixii ka dhacay baa ka dhacay waxyaalo maaragtay aan ku ilownay xasuuqii jeelka ahaa baa ka dhacay waxaan arkaynay oo isheenu arkaysay nin weyn oo macquula oo jabsanaya guri isla markii waxaan aasaasnay odayaal budad baan qaadanay meelaha yaryar ee maaragtay dhowrka qof ee wax jabsanaya iyo dhowrka qof ee wax dilaya ayaan eriyanayno ka ridayna wixii maaragtay ay qaataan isla maalinta runtii maalinta wixii dhacay waxaan ka sheekeyn karayna ma aha dhibaato weyn baa dhacday dhibaatadaas oo kale si ayna inoo helin dad damiirkoodu nool yahay tashada meel wax dhigta qoratan wixii ay ka tagtay maaragtay si fiican u diiwaan geliya si ay cashir inoogu noqoto ama xasuuqii ama jariimadii ama waaqicadii dhacday August 4 dhacday si ayna dib dambe aan maaragtay uga tabtaysano oo inagoo diyaara haddii ay ilaahay inaguma keenaba la samax Allah ilaahay inaguma keeno laakiin inaan ka diyaar garownaa loo baahan yahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh